iyadoo maalmihii la soo dhaafay wadahadalo ay u socdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusuna wal Jameeca kaasi oo looga hadlayay sidii loo dhamayn lahaa khilaafka ka taagan dhismaha maamulka Galmudug ayaa ugu dambeyn maanta laga gaaray heshiis buuxa iyadoo la xaliyay tabashooyinka ay qabaan Ahlusuna. Hoggaanka Ahlusuna ayaa loo ogolaaday in 20 kursi ay ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug kaasi oo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka maamulka Galmudug iyadoo ay xusid mudan tahay in qodobkan uu ahaa kii ugu weynaa ay isku hayeen dowladda dhexe iyo Ahlusuna maadaama hoggaanka Ahlusuna ay dalbanayeen in la siiyo 35 xubnood. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu shaaciyay in heshiis laga gaaray arrimaha maamulka Galmudug. qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in Ahlusuna 20 xildhibaan looga ogolaaday in laga siiyo baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug oo ka koobnaan doona 89 xubnood. dhanka kale heshiiskan ayaa waxaa ka hadlay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa uuna sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska laga gaaray dhismaha maamulka Galmudug. qoraal ka soo baxay xafiiska Sheekh Shaakir ayaa waxaa lagu shaaciyay in arintani ay door ka qaateen xubnaha beesha caalamka. heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusuna ayaa waxaa maanta ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb. Soomaalidu dhinac heshiisay bay ka dhigan tahay culimada iyo Ahlusuna iyo dowladda federaalku haday heshiiyeen oo maamulka Galmudug la dhisayo oo sidii loo dhisay lagu heshiiyay wax la heli kara maahan. farxad baanu maanta dilaacsana sababtoo ah odayba hadda ka hor waxa la yiri jeel lagu xira wuxuu wax badan jeelkii ku jiraba maalin dambe la soo daayay oo markaas reerkiisii tagay habartiisii baa ag seexdo wuxuu yiri wax dhammaan jujuubnaayo jinna xariga ugu jiray balan caawa jimicsado reer Galmudug horta caawa jimicsanayaan mar hadii la heshiiyay odayaashii daalay iyo dadkii daalay ee gabrana heshiiskan waan baan u soo dhaweynaynaa. waxaan u arkaa guul u soo hoyatay sunna wal jameeca iyo dowladda. waxaan u arkaa dadka reer Galmudug inay caawa ku seexanayaan ku naaloonayaan in dowlad loo dhigo rajo weyn ka qabaan in dowladu u dhisanto. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in dowladu u dhisanto oo dhaba isla wada qaadaan. maanta waxa la qaaday oo cagta la saaray wadadii cusbeed cagta saarnayay way ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay weynayo waaxidhay oo arintaas oo sahlan sida Allah uga dhigay in ilaahay u ahayo. waxaan rajaynayaa in odayaasha dhaqankana ilaahay baan idinku dhaariyaa soo xulinina xildhibaana wax qorin oo wax aqrin una damqanayn dadka iyo deegaanka uu ku matalo xildhibaanka uu lacag uu ka soo xilka soo ma gadan in dad u dhiibtay dadka u dhiibtay oo oonka iyo gaajada iyo waxbarasho la'aanta iyo caafimaad la'aanta qaba oo wadooyin la'aanta haysan oo dekada haysan oo aeroboort qurux badan haysan xildhibaan aan ka shaqeynayno shuruucda meel marinaynin ha soo xulinin labadiina dhinacba. xulistii xildhibaanada iyo dowladdii Galmudug oo dib loo dhisayay oo muddo cakirneed haddii ay culimadii Ahlusuna wal Jameeca u tanaasuleen shacabkoodii haddii dadaalkii dowladda federaalka uu guuleystay haddii Galmudug maanta hore u soconayso waxaan leenahay balyo intii ka shaqeeyay dhammaan ka qaybgalayaashii madaxa xukuumadda hogaamiyaha guud Ahlusuna ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya xildhibaanada wasiirada ganacsatada culimada beesha caalamka dhammaan intii qayb ka geysatay waxaan leenahay hambalyo. dhawaan ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo gudagalo soo xulista baarlamaanka Galmudug iyo doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug. Maxamed Cabduuli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal Dhuusamareeb.